Consulka Safaaradda Soomaaliya ahna siyaxayaha safiirka dalkani Jamhuuriyadda Jabuuti Cabdiraxmaan Maxamed Hiraabe ayaa waxa uu maanta xarunta safaaradda dalkani Jabuuti kulan kula qaatay saraakiil ka socota dowladda Talyaaniga gaar ahaan ciidamada Talyaaniga ee saldhigga kule dalkani Jamhuuriyadda Jabuuti. Saraakiishan ayaa waxaa ka mid ahaa sargaal ka socday ciidamada Carabinieriga ee dalka Talyaaniga ee inta badan tababarada ku siiya dalkani Jamhuuriyadda Jabuuti ciidamada booliska ee Soomaaliya. kulankan ayaa waxaa lagaga hadlay arrimaha la xiriira xiriirka iskaashiga labada dowladood ee Soomaaliya iyo dowladda Talyaaniga iyadoo sidoo kalena laga wada hadlay arrimaha tababarada ciidamada booliska ee Soomaaliya. Consulka Safaaradda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Hiraabe oo wax ka weydiina waxyaabihii ay ka wada hadleen isaga iyo saraakiisha ka socda dowladda Talyaaniga ayaa waxa uu yiri Colonel Mario wuxuu ii sheegay in magaalada Muqdisho soo maray oo la kulmay taliyaha ciidanka booliska General Cabdi Xasan Xijaar iyo taliye ku-xigeenka General Sekiyo wuxuuna ii sheegay inay ka wada hadleen arrinta ku saabsan tababarka ciidamada ay ku tababaraan dalka Djibouti. waxaan ka wada hadalnay arrintaas oo kala soo hadlay ciidamadeennii saraakiishii ciidanka booliska ugu sarreysay. Colonel Mario wuxuu ii sheegay 23 September 44 ka mid ah ciidamada saraakiisha Soomaalida in halkaan tababar looga furi doono ilaa 6 December oo ay aan u maleynay ugu yiri 6 December in maartay xafladda xiritaankooda aan ka dhigi doono kadibna waxaanu bilaabi doonaa sidii kale aan hore ugu wadi jirnay. wuxuuna ii cadeeyay inay daacad ka tahay runna ay ka tahay inay tababaraan ciidamada booliska. dhinaca kale xiriirka kubadda cagta ee dalkani Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa u hambalyeeyay kooxda xulka qaranka Soomaaliya ciyaar wanaagii ay soo bandhigeen iyo sidoo kale guushii kolkii hore ay ka gaareen dowladda Zimbabwe xulkeeda qaranka ay kula ciyaarayeen dalkani Jamhuuriyadda Jabuuti. wallahi aad baan ugu faraxsanahay natiijadii Soomaaliya ay ka gaadhay maartay ciyaaraha sareebka ciyaartii Jabuuti warkaysan xulka Zimbabwe xilin ma hal iyo barbekaba si fiican bay ciyaaraan ciyaartooy waxa professional dibadda la keenay way ku toosaysaa wax weyn dadku inay fahmaan localka iyo internationalka iyo playerka inta u dhaxaysa ragii la isku keenay dibadda la keenay ciyaartii daily markiisa ciyaar professional ba daily xulka Zimbabwe iyo Djibouti ka badiyeen shalay toole tii alla ma qoran ilaahay ma qoran laakiin ciyaar fiican bay ciyaareen إلا هذا 70 minutes 0-0 وهيك أنا 1-1 بكينن دبدي كوكينن هيك يا جود بلها 2-1 بهيك جود بلها لكن إله بقرن ساعد ضد بسات كور كيستحل قدلي لكن حنبلي على هاي حلقة كسي وضع على هاي إن حجيو وحلقة ذاك كسي وضع لكن الشغف في عم بيسمين هذا وكان بلي أنا حريك بدعك سومالي أتو جوش عن جاني كم ابن مارتي لو أن مركز فدراسيون جيبوتي أنا مدي إليك جيبوتي waxaan dejinay barnaamij maartay hada hoosta ka soo xulino muddo 45 sano ayaan branch ku soo jirnay xulkan maanta jooga seniorka 2014kii waa under 17 bahayn waxa ka qayb galeen ciyaari carabta under 17ka wanakii qolada saddexaad baxnay madayda bronze soo qaadnay kuwii bahaynay waxaan coach jadid tababar jadid waan ugu yeero Francisca Mikael Cabdirashiid Bare Radio Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed Jabuuti.